waxaa cirka sii gashay rajada ku aadan in ciidanka Soomaaliya ay muujiyaan isku filnaansho guud iyadoona ciidanka Afrikaanka ee dalka jooga laga maarmi doono. waxaa jira dawlado dhowr ah oo qaaday tallaabooyin xooggan oo lagu dhiirigelinayo ciidanka Soomaaliya kuwaas oo bilaabay in ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan. askarta midowga Afrika ayaa wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in markan walaac xooggan ay muujinayaan iyadoo ay jiraan dawlado dhowr ah oo bilaabay sidii ay u sameyn lahaayeen dhaqdhaqaaqyada kala duwan. sargaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu magacaabo General Bashir Maxamuud waxa uu tilmaamay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira sidii ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen mas'uuliyadda guud amniga dalkooda. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarisay ajenda cad oo ku aadan in 31 bishan oo maalmo kooban kaliya ay naga xigaan in ay dawladda ku gaarsiin karto shirka madaxda wadamada ciidamada u soo diray Soomaaliya in ay ajendahan ku horfto maadaama uu jiro ballanqaad kol hore uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in siyaasadda amniga iyo sidoo kale isbedelada guud ee dalka ka dhici kara in dawladda federaalka Soomaaliya dib ay u dhiganayso. arintaasi marka madaxda loo sheego waxay intooda badan raaci doonaan qorshaha iyo tallaabooyinkan oo la sii qariyay. waxaase si hordhac loo helay in dawladda federaalka Soomaaliya ay qaadayso tallaabooyin dhinaca amniga ugana maarmayso ciidanka shisheeye dhaqaalaha faraha badan ee ku baxa ciidamadaasna dawladda federaalka ay arintaasi u adeegsan doonto farsamooyinka iyo ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka Soomaaliya. geesta kale waxaa socda dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira arinta shidaalka Soomaaliya iyadoona dawladda Turkigu ay soo saartay war hordhaca oo muujinaya diilada iyo farxadda weyn ee ah in shidaalka Soomaaliya markaan la gaaray gunta hoose banaankana la soo dhigi doono. warshadaha sifeenaya badaroolka Soomaaliya sanbala kamid ah ayaa la keenay gudaha Soomaaliya iyadoona Turkigu maalmihii u dambeeyay doomo iyo maraakiib waaweyn uu ku soo rarayay qalabkaas loo adeegsanayo in loo adeegsado sifeenta shidaalka Soomaaliya. sargaal ka tirsan wasaaradda badaroolka Soomaaliya waxa uu dhankiisa warbaahinta qaarkood u sheegay in arintan ay tahay farxad weyn maadaama Soomaaliya muddo dheer ay la foolanaysay soo saarka shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya. Turkiga ayaa arintan waxay ugu dhigan tahay in guul muhiim ah uu ka gaaray marka la eego arrimaha guud ee dhanka shidaalka Soomaaliya iyadoona Ankara ay markan u muuqato in farxad ay ka muujinayso marka la eego soo saarka shidaalka. wadamo fara badan oo ogaaday in aanay la joojin karin caqabad walba oo siyaasadeed iyo mid walba amni oo la abuuro arinta soo saarka shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee Soomaaliya ayaa markan bilaabay in ay sii gaashantaan iyagoona dawladda federaalka Soomaaliya ku garab istaagaya dhaqdhaqaaqyada guud ee arintaas la xiriira. xubin sare oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan waxa uu dhankiisa sheegay in Soomaaliya arrimaha dhanka amniga soo saarka shidaalka iyo doorashooyinka ay yihiin saddexda qodob ee calaamadaha la saaray kuwaas oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wado dhaqdhaqaaqyo xooggan iyadoo ay kaashanayso wadamo dhowr ah oo Turkiga uu ka mid yahay. isbedelada dhanka amniga waa waxyaabaha ugu waaweyn ee inta badan indhaha lagu hayo taasoo keentay in xitaa wadamada Afrika ee ciidamadooda Soomaaliya ka joogaan laga soo bilaabo 2007 ilaa hadda ay aamini waayaan awoodda dheeraadka ee ciidanka dawladda federaalka ay la soo baxeen. howlgaladii sanadkii hore iyo kii ka sii horeeyay ee ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobolada dalka waa ciidankaasi dawladda federaalka oo kaashanaya ciidamada deegaanka oo qudhoodu dawladdu rabto inay qaramayso waa macawisleydi waxa ay bilaabeen in ay fariimo cad ay u diraan wadamada kala duwan ee caalamka. tababarada la soo siiyay ciidamada iyo saraakiisha waxay ka dhigtay in dawladda federaalka Soomaaliya durba ay bilowdo in ay amniga diiradda saarto. dhimista ciidanka midowga Afrika xiriyaha qaarkood oo lagala wareegay amniga guud madaxda iyo madaxtooyada qaranka ayaa waxa ay keeneen in ay noqdaan fariimo ay ku adkaatay midowga Afrika in si fudud arintaas uga jawaabo maadaama ciidanka Soomaalida ay muujiyeen kalsooni iyo farxad weyn oo arintaasi ku aadan. Soomaaliya haddii ay isku hesho sugidda amniga guud ee dalkeeda soo saarka shidaalkeeda
doorashada siyaasadda ama dhinac loo rido doorashada iyadoo aanay wax buuq iyo rabshado dhicin waxay taasi mar kale fariin wadnaqabada u noqon doontaa dalalka cadowga ku ah Soomaaliya ee muddo dheer doonaya in ay haadaan ka tuuraan xaaladda siyaasadeed iyo waqtiga kala guurka loogu yeero ee marka ay dowlad muddo xileedkeedu sii dhamaado dowlad kalena la sugayo arrimahan oo idil ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli mas'uuliyiin saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya Muqdisho Addis Ababa iyo Kampala ay ka wadaan kulamo ciidamada Afrikaanka isbedelkooda cusub lagu soo bandhigayo kuwaas oo mas'uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in banaanka la soo dhigo wax walba oo muujinaya awoodda dheeraadka ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay u leeyihiin sugidda amniga guud ee dalka sida ay sheegeen ila wareedyo kala duwan oo ku dhow Addis Muqdisho iyo Kampala wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta warbaahinta xuraansi ku daawo waadna ku maasan tahay daawashadii ku xinaanta janalkayga